Comme vous le savez, la Cour des comptes, institution supérieure de contrôle des finances publiques. sida aad ogtihiin maxkamadda hantidhawrka waxa ay tahay inay ka warhayso maaliyadda dadweynaha jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxa ay xubin ka noqotay qodobka 66 iyo 71 oo la dhaqan geliyay sanadkii 1992 waxaase isbedel lagu sameeyay sanadkii 2008 hawsha ayaa isbedel lagu sameeyay markale qodobka 140 23 bishii 6 Juun ee 2016 marweyn iyo mudanayaal marka hore aniga waxa ay tahay farxad inaan idin kala shaqeeyo hawsha si aan u cadeyno halka ay wax marayaan markasta iyo waqti kasta magaca hay'adda hantidhawrka waxa ay tahay in laga warhayo nidaamka hantida maxkamadda hantidhawrka waxa ay waafaqsan tahay nidaamka dastuurka dalka uu dhigayo ee ilaalinta hantidhawrka marweyn iyo mudanayaal waxa nidaamka hantidhawrka waa hawl lagu ilaalinayo markasta la iskana xog wareysanayo oo qayb ka qaadanaysa ilaalinta maaliyadda dadweynaha waxa looga baahan yahay inay ka qayb qaataan hawsha oo aad si adag u shaqeysaan sanad walibana aad soo saartaan warbixin ku aadan halka ay wax marayaan iyo nidaamka hantidhawrka.